baraha bulshada waxaa si aad ah u gelgelay sidoo kalena si kulul looga falcelinaya video soo ifbaxay saacadihii aynu kasoo gudubnay oo laga dheexan karo run ahaantii arrin ama kaag la yaab iyo sidoo kale fajax ku noqotay indhaha qof weliba uu arko. arrintanna haddii aan si toosa u guda galo waxa ay quseysaa fanaanad ka mid ah fanaaniinta reer muqdisho oo iyada oo xilli markaasi hees laga duubayo ku sugan beerta daarusalaam ee magaalada muqdisho, goob ka mid ah fanaanadaasi iyada oo markaasi laga duubayo hees barbarkeeda dhinaca kale laga arkayo isla muuqaalkaasi inan soomaaliyeed ama wiil dhalinyaro ah oo tukanaya salaad ku tukanaya isla goobta meel aan ka fogeen meesha fanaanada qoobka ciyaarka ay ku sameyneyso oo heesta looga duubayo kameramaankana halkaasi heesta uu ka duubayo. arrintan ayaa baraha bulshada aada u qabsatay, waxaana dadku ay wax iska weydiinayaan dhacdadan maxay ahayd, goormay ay kusoo beegantay, goormuusuu ahaa videogan, maadaama dadka dee ay noqdeen faar ku dhignayaal ummadda soomaaliyeed faar ku dhiglayaal ay noqdeen dhalinyarada weliba dadka tiktok isticmaalo ay soo qabanayaan wax allaala wixii markaasi iyagu ay ka shakiyayaan. soomaalidu waa wada f b i dhawaanahan marka uu aaladan cusub social media iyo aaladihii ugu dambeeya siba aalada tiktoka kadib la arkaya dad badan fadeexadaha iyo waxyaabaha markaasi aynan adag tahay ama ay adag tahay in la arko oo ay indhuhu qabtaan ay soo saarayeen dadka meel allaal meesha ay dhaliilsan yihiinna ay calaamad markaasi tusinaysa muujinaysa ay ku xardhayeen. videogan ayaana aada ula yaabay runtii kolley fanaanadaasi dadku way wada garanayaan baan filayaa, waa fanaanad reer muqdisho ah, hees ayaa laga duubayay xilli ka mid a xilliyada markaasi fanaanadaasi heeskaasi ay duubeysay. aan filaya heeska iminka youtube ayuu ku jira, hadda behind the scene wax la yirahda ayaa jira oo ah heeska marka la duubayo dadka kolley kameramaanada si wanaagsan ay u yaqaanaan qaladaadka heesta ay lahayd waxyaabihii ku jira. video waxaa jira ay soo daabacaan oo youtubeleyda inta badan ay helaan oo lasoo geliyo oo heeskii markii la duubayay tijaabadii iyo waxyaabihii heeskaasi marayay lagu arkaya. bal waxaan aada ula yaabay dadkuna ay aada markaasi ula argagaxeen ulana fajaceen. wiil ayaa ku tukanaya goobta fanaanada heesta looga duubayo, bal meesha uu ku tukanayo fanaanadu ay taagan tahay oo dansi ciyaar ayay halkaasi iyadu ku sameyneysaa qoobka ciyaar oo heestii ayay iyadu jaaskeeda wadaa oo ay ku raaxaysanaysaa. waxay marka dadka saluugsan yihiin bal maxay ahayd arrintan, cameraman soo gabadhan wax kama duweynin, cameramaanka xaguusu joogay, indhihiisuse intay jireen, miyuunan isagu caqligiisa xiskiisa isaga oo markaasi maskaxdiisa kaashanaya heeskaasi bows intuu ku qabto ama uu joojiyo uu hakiyo si wiil ka tukanaya salaada u dhammaysto isagu howlaha cibaadaadka u guto. haddii labada shayba midna waa mid alla subxaana watacaala raalli ahaanshihiisa ku xidhan, midna waa caradiisa alle mid markaasi ka dhalanaysa. hees baa la duubaya, qof ayaa tukanaya oo cibaado ku jira oo cibaado sameynaya. bal heestii si lamid a sida diinteena aysan u ogoleen in qur-aan isagoo daaran ama la dhegeysanaya in haddana hees iyo qur-aan laisla dhegeysta ama laga garab daaro qur-aanka sida diinta aynoo farayso. marka uu qur-aanka shidan yahay ama qof qur-aan akhrinayo inaanu wax xarakaada aynu sameyn, inagu aynan hadlin, sheekadeena aynun wadan karin, hees aynun markaasi aynu dhegeysan karin iyo waxyaaba noocaas oo kale. haddana dhacdadan waxay ahayd mid aada iyo aada u la yaab leh marka loo fiiriyo saameynteeda iyo adduunka maanta halka uu marayo. runtii aakhir zamaan ayaynu taaganahay. ummadda soomaaliyeed alla subxaana watacaala waxaan leeyahay ha samata bixiyo, ummadda inta lunsanna allaha soo hanuuniyo, inta markaasi alla subxaana watacaala caasisana alla subxaana watacaala qulubtooda dib ha usoo celiyo, ha fahansiiya alla subxaana watacaala in aakhira ay jirto oo laisla xisaabtamayo oo adduunkan maalmo qura uu yahay oo laga tegi doono. alla subxana watala qof walba camalkiisa uu la tegayo maalinka qiyaamo marka uu dhinto. videogan marka aada ayaan ola yaabay saacadihii aynu kasoo gudubnay. dadka social media isticmaalo kolley waa soomaalidu indha ku garaadayaal, waa dad markaas indheer garad ah oo inta badan la socdo waxyaabaha waaqica dhabta ee dhacaya. dadkuna waxay leeyihiin
waa musiibo, waa arin aan run ahaantii wanaagsaneyn, waa aran waxay leeyihiin waa musiibo, waa arin markaasi aan wanaagsaneyn, waana arin la oran karo run ahaantii shaydaanka iyo jinka dadka ula shaqaysanaya ee uu qurxinaya adduunka iyo waxyaaba maalabaalka in waayadan dambe aysan ku dhiiranaynin, caqligooda uusan siinaynin hal maroo qura in alla subxaana watacaala ay ka xishoodaan in dunuubta ay sameynayaan si ku talagal ay u sameynayaan, bal wax yar in ay soo xusuustaan oo ay ku cibro qaataan in la dhimanayo oo god 2 mitir qofka uu ka horeeyo oo uu dhiman doono maalin maalmaha ka mid a. waana calaamad lagu dhaawici karo qulubta muslimiinta baa leeyahay. meel weyn oo qofka uu ku tukanayo, goob uu ku tukanayo, qofka salaada isaga bixinaya, haddana fanaanad hawsheeda wadata oo iyana aanu ku dhiiranayn hal maro qura in bal alla subxaana watacaala ay ka xishooto. kolley inagu ma xukmin karno falkaasi iyo in gabadhaasi si ku talagala amaba ay iyadu dhayalsanaysa diinta, ay dhayalsanaysa cibaadada. kolley dumarka xilliga iyada waxaa macquula gabadha inay tukatay oo salaadeeda iska bixisay, howsheedana ay wadato, laakiin wiilka halkaa ku tukanaya goobtaasi ayay dadku wax iska weydiinayaan, bal muxuu halkaa ugu tukanayaa, meel kale uu ku tukada muu waaye oo muxuu meel kale ugu tukan waaye. meesha muusig iyo waxbaa ka socdaa, hees marka la duubayana dadka way fahamsan yihiin oo kulley heeska waa la daaraya, marka hore sameecad yar baa lagu daaraya, fanaanada way la jaasaysaa, way la qaadaysaa, kadib ayaa videoga iyo heeskii la isdul saaraya. qaabka ayay u sameeyaan howsha dadka kaameramanada ee aadka howshan ugu fara fudud. kolley waan rajeynayaa muuqaalkan in aad aragteen wax badanna aad idinkaga baxay. haddii aan ku daahay waan idinka raaligelinaynaa, subscribe inoo saara channelkan, like muuqaalkan, asxaabtiina sii gaarsiiya. waxaanu hiigsanaynaa in dad badan aynu gaarno, dad badan ay nagu soo biiraan, weliba waxaanu kordhin doonaa oo tayan doonaa muuqaalada halkan aan kusoo gudbino, si dad badan oo inagu xidhan ay u helaan waxyaabaha halkan aan kusoo gudbino ee dhanka macluumaadka waaqaca bulshada dhexdeeda ka jira, dhacdooyinka maalinlaha bulshada ka jira, qisooyinka, sheekooyinka markaasi aynan hore loo arag oo dadku aynan tabin, oo ay tahay in ummadda waxyaabaha cibro qaadashada mudan wacyigooda, fikirkooda iyo bal baraarujintooda dhankooda ay iyaguna ka galaan. bal howlahaasi ummadeena ayaynu ku baraarujin doonaa. youtube-kan wuxuu noqon doonaa midkii ugu horreeyey oo dadka talooyin waafi oo dhaxalgala ay ka heli doonaan, iyo muuqaalo qurux badan oo si wanaagsan looga soo shaqeeyey oo halkan aan ugu soo gudbin doono haddii waqtiga uu inoo sii saamixi karayo. waanu markaas idinkaga mahadcelinaynaa sidaad nagu xidhan tihiin. inoo like-gareeya muuqaalkan, share gareeya, sidoo kale gambaleelka furta oo la wadaaga asxaabtiina dad badan si aynu hanano.